soddon jir Soomaali ah ayaa 3 qofood torrey ku dhaawacay magaalada Vienna ee caasimadda waddanka Austria kadib markii isaga oo mindi ku hubeysan uu soo dhaxgalay meel center bulsho ah halka uu mindi la dhaxgalay dadkii goobta ku sugnaa. 3 qofood ee uu dhaawaca u geystay ayaa lagu soo waramayaa in ay ahaayeen rag ay da'doodu u dhaxaysay 40 ilaa 50 waxaana la soo warinayaa in midka koowaad uu cunaha ama qoorta dhaawac culus kaga geystay, kan labaadna uu caloosha ka dhaawacay halka kan saddexaadna uu dhaawac uga geystay madaxa. Dhacdadan ayaa markii ay goobta ka dhacday waxaa si degdeg ah ku soo gaaray booliiska magaalada Vienna ee caasimadda waddanka Austria kuwa oo ay u suurta gashay in ay xakameeyaan. Si taa lamidana waxaa gurmad degdeg ah u fidiyay hay'adaha caafimaadka dalkaasi kuwa oo 3 qofood ee dhaawaca ahaa goobtooda ugu gurmaday dabadeedna u kaxeeyay isbitaalka halkaasoo lagu soo waramayo in hadda lagu tabiibayo. Booliiska ayaa waxa ay ku guuleysteen in ay gacanta ku dhigaan 30 jirkan 3 qofood dhaawacay waxayna u taxaabeen xabsiga iyada oo la baarayo kiiska iyo waxa uu u dhacay iyo sida uu u dhacay. Waxayna hay'adaha booliiska magaalada Vienna ee caasimadda Austria sheegayaan in aysan cadayn sababta ku kaliftay ninkan, waxa ayna xaqiijinayaan inaysan jirin aqoon hore oo ka dhaxaysay ninkan torreyda ku hubeysnaa ee Soomaaliga ah iyo 3 qofood ee uu dhaawacay. Arrintan ayay kiis ka fureen waxaana socda baaritaan xooggan oo lagu sameynayo habka ay wax u dhaceen. Si taa lamidana booliiska ayaa dib u eegaya kaamirooyinka waxa ayna wareysteen markhaatiyaashii goobta ku sugnaa kuwa oo ay wax ka weydiiyeen habka iyo sida ay wax u dhaceen. Ninkan Soomaaliga ayaa hadda waxa uu ku sugan yahay xabsiga magaalada Vienna halkaasoo su'aalo lagu weydiinayo baaritaan kalena lagu sameynayo kiiskiisa waxa ku kalifay iyo sida ay wax u dhaceen. Halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.